bismillah waxaan halkan ku soo gudbinayaa daawo cajiib ah oo ka kooban 7 shay oo la isku daray oo noo soo gudbiyay samafale Masri ah Khayralaasiye wuxuu yiri mushkilad kasta Ilaahay ku kaaga caafinaya sida mindhicirada dhibaatooyinka dhiigkarka sokorta oo caadi noqonaya wadna xanuun neefta ama naqaska borostaadka iyo dhagxanta kaliyaha iyo qakaadi qof ay dhibayso iyo dheefshiid xumo calool fadhi qufac waxaas iyo wax ka badan ba waa u filter iyo nadiifin kulli viruska iyo microsoft iyo okay dhagxanta kaliyaha way u burburinaysaa ay soo daadinaysaa ilaa idankii wax qaleelan oo baahanaysid wuxuu yiri aniga 13 sano ayaan isbitaal aadin hal xabo oo kaabsolana xitaa madax xanuun uma ana qaado anigu waan karayo yiri inaan qaahira tagay ku shaqaysto laakiin waxaan goostay inaan li wajila idinku sheego waana ii sadaqo jaariya ee aabay aan jeclahay ilaahay idinka aan ula baxayo fadlan idinka baqayli mayo waan idin faahfaahinay u gudbiyo ummad badan oo masaakiina oo aan daawo ibsan karin baa jirtay halkan farmashiye buuxa ayaa halkan farmashiye uga furtay kumanaan ama 10,000 ka badan baana alle idinka isku daweeyay ilaahayna ma ku mahadle wuxuu yiri waxaad soo diyaarsataan hal koob oo malab saafi ah 2 hal koob oo khal timireed ama khalka tufaaxa kii aad rabto 3 hal xabo oo liin dhanaana oo aad maqaarkeeda ku jarjarayso 4 cad yar oo sinjibiil ah waxaad iska weyn adig xoogaa 5 hal kuus weyn oo tuun ah 6 timirta cajwada la yiraahdo 7 xabo adig xoogaa oo lafta ka tuurayso 7 oo ugu dambayda 3 ama 4 malqacdood oo xulbad shiidan ah waa muhiim xulbadu sanjibiisha iyo liinta isku jarjar kulligood isku shiida dhala ku shubo waag kadib hal qaado oo subax ah iyo hal qaado oo habeenkii ah oo mid walba ku qasanayso hal koob oo biyo diiran ama kulul wuxuu yiri sanjibi dhaqtarkii Carbeed Ibn Kindi wuxuu yiri haday dadku ogaan lahaayeen daawada xulbada ku jirta miisaankeeda oo dahab bay ku iibsan lahayn طبعا xulbada waxa ku jirta 30 faa'iido oo caafimaad ka badan daawadan aan isku darnay waxay xoojinaysaa